sharciga isku kiinto layo luqadaad waaxid aho arligiina taaka aho kuma kala tagaysaan بسم الله عبر بالفيديو حنسكو دايا شنطة إنا كسو يرايو بسم الله الرحمن الرحيم سلام جود محلق قارة إدي سوق بنقابي سيقودي سوق بنقابي برنامج كان دكتور محمد عيسى تورنجي iyo shakhsiga buuga laga qoray madaxweyne aadan cabdulla cismaan iyo aniga waxaan wadaagnaa inaan wadanahay reer Beledweyne maxamed ciise waxaan nahay familkiisa iyo familkayga long time friends aan nahay mama caraba adeer ciise turinji adna xagga uga jeeda iyo yani familka dhanba waxaan ahayn dad saas iskugu dhow very close ahaa ilaa iyo Soomaaliya ilaa iyo Talyaaniga maran isla joogno waa jirtay muddo aad u gaaban ilaa iyo Ingiriiska oo markuu yimid waxaan u maleynayaa inay ahayd 2005tii dadkii ugu horreeyay haddana ay ku kulmeen ilaa maantana waa isla soconaayo maaragtay waxaan nahay dad casho milaxaan nahay dadka wax qora weliba taariikhda dadka qora laba nooc loo kala saaraa dadka qaar waxaa la yiraahdaa historians waa dad soo bartay taariikhda baaritaankeeda si fiican u yaqaana yani ku takhasusay dadna waxaa la yiraahdaa storytellers dhacday oo ka sheekeeya wuxuu yiraahdaa berigas waxaas dhacay maxamed ciise wuxuu soo bartay sharciga sida la sheegay laakiin waxa aqoon durugsan wuxuu leeyahay taariikhda sida loo baaro أنا waxaan aaminsanahay buugaas halkaas yaala iyo buugan madaxweyne aadan cabdulle kan down whole history midkan kiiba hadii 100,000 oo koobi laga iibiyo uma soo celinayso lacagtii ka gashay safaraadkiisa aadan ula soo celin Talyaani uu tagay Geneva uu tagay yani ilaa Austria ilaa iyo Congress Library America xoogagii laga aruurinay Ingiriis iska badaaba isaga degan tusaale yar halkan oo ka baxaya Rome uu tagaya badana waxaa dhacda dad xog haya ayaa markay gaboobaan ama ay mataqaanaa geeriyoodan xogtii ahaayeen buugtii iyo dokumentiyadii waxay donation ku siiyaan ama library ama xarun kayd archive ku siiyaan waxa laga yaabaa mid magaalo yar ku taala dhowr mar in dhacday arintaas maxamed inuu soo ogaado halkan diyaarad uu ka qaato Rome uu tago tareen uu ka qaato tuuladii yar uu tago hotel uu qaato muddo uu joogo baaritaanka intuu ku jiray marka qarashka ka gali kara waa iska qiyaasi kartaa taas oo tahay aan mar walba waxaan ku yiraahdaa maxamed ilaahay cimri dheer uu ka siiyo maxaa yeelay living legend waa maxamed ويجران دad la daa ama ka daaweyn way aragnimada uu leeyahay oo kale tale laakiin sidoo active u yahay oo rabo wixii inuu soo gudbiyo cid saas oo kale sameeysa ama ma jirto ama aad iyo aad u yartahay waxaan ilaahay ka baryaa inuu cimrigiisa noo dheereeyo si kuwa kale soo socda haddana waa jiraan buug kale hadda pipe ku soo jira oo isagana ma sha Allah shakhsi aad iyo aad loo jecel yahay mar rabo inaan si kashifo la shakhsi aad iyo aad Soomaaliyeed oo dhan u jeceshahay taariikhdiisii iyo waxqabadkiisii iyo ayaan taqaanaa soo socday isaga laftarkiisa waxaan yiri madaxweyne aadan cabdulle iyo maxamed ciise iyo aniga dad badan ay jooga halkan oo taqaanaa saaxiibadiisii iyo macallimiin qaar oo soo ahay ayaa jooga laakiin hal nin aan ka soo qabanaya Consul Qasim ayaan ka soo qabanaya waxaan galnahay 4 generation oo kala duwan madaxweynaha iyo abukaataha yani iyo qaasi isaga noogu yar aniga gurigan ku dhashay iyo madaxweynaha gurigiisa waa guriga shanaad waxa qaasina iga dhow oo daris ay si ahaayeen isaga laakiin waa dad saas u ahayn close u ahayn inkastoo maxamed wuxuu weydiiyey ala cabdulwaliga Beledweyne ku aragtay waxaa irmay maxaa yeelay
markii kasoo guureen reerka kadib aan dhashay aniga laakiin beledweyne markaan joognaa waxaan dhihi jiray guri adeer aadan cadde mar walba qof kastoo reer beledweyne ah adeertaas u raacinayo maxamed taariikhdiisa waa laga soo hadlay waxqabadkiisa waa laga soo hadlay waxbarashadiisa waa laga soo hadlay waxaan isla soo soconnay waxaan ku yiri beledweyne iskala soo bilownay ilaa iyo markii asiga uu qaramada midoobay shaqada ka helay isagoo jooga Philippines isagoo jooga Iran isagoo jooga daalku samadiidin Sudan isagoo jooga Zambia uma leena markii ugu dambeysay oo howlgabka ka galay qaramada midoobay intaas waa xiriireynay bargaas WhatsApp-na ma jirin telefoonnaas u fududna ma jirin laakiin waxaan waraaqdan ku wada xiriiri jirnay mar walba meeshuu joogo iyo hawsha uu qabtay iyo wuxuu qabanaa iyo waa haddii uu jiro qof Soomaali ah waxaan aaminsanahay haddii uu jiro qof Soomaali ama ma jiro waan yiraahdo Soomaalinimada dhab ay ka tahay ana waxaan aaminsanahay Maxamed Isturjo intaas waxaan u malaynayaa in laga wada marqaati kacaya saan sheegay reer beledweyne badan meesha joogo iga raali ahaada haddaan magaciisa sheegin saaxiibkii Cabdirashiid waa ka Sayid Khalifa jooga generaalka jooga dad badan ay jooga marka qofkan magaciisa sheegan ha iga raali ahaado mar walba waqtiga sii hadalka aan sii badiyo oo aan sii dheereeyo waxaan jeclahay 5 daqiiqo inaan intii lagu talagalay aan ka soo yareeyo si dadka cabareed joogeen aysan ku sii caajisin buugta hala gato ana waxaan ku jiraa miiskaas dadka fadhiya waa buug leydi fariinteena mar walbaba maxamed xaraare ee arrintaas inuu sheego mar walba waxaa buugtaas hala gato yaan lala noqonin buugta aan ka sheekeeyey juhdiga galay iyo qarashka galay buugtaas yaan guriga lagu celinin qof walba mid ama laba ha qaato 3 4 wuxuu qaadan karaa qaato hadiyad ugu fiican oo maanta qof aad sii karto madaxweynihii ugu horeeyay oo shakhsi saas Soomaalidu jecesho sharafta badan ah oo aad toban baan ku bixisay waa wax mataqaana aan mudan wax mudan maxamedna aan ku sharfayno hawshii uu qabtay madaxweyne aadanna aan ugu ducaynayno kuna sharfayna asiga laftarkiisa aad iyo aad aan idin salaamaya warka intaas aan kusoo koobaya maxamed waa mahadsantahay adiga